wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka madaxa mashaariicda Afrika u qaabilsan markaska Boqor bin Salmaan waxaana kulankaasi wasiirka ku wehelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland agaasimaha waaxda isku duwidda iyo sidoo kale la taliyaha wasiirka ee arrimaha carabta kulankani oo ahaa mid waqti dheer qaatay kadib ayaa markii uu kulankani soo dhamaaday waxaa ka warbixiyay kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxa saaka xafiiska igu soo booqday ku-xigeenka mashaariicda Afrika u qaabilsan muasasada Boqor Salmaan oo ah Yusuf Bakhid Bulushi mudana joogay iminka waddanka Soomaaliland wasaaradda kala duwan ay sarkeen maanta harana aanu soo aragnay maantana aanu ka wada hadalnay sidii loo dardargelin lahaa in waxqabadka iyo waxtarka muasasada Boqor Salmaan uu kor ugu qaadi lahayd ay u kordhin lahayd waxtarka iyo wada qabsiga ay u fidinayso shacabka ay walaalayeen reer Soomaaliland wax badan baanu isla eegnay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa noo suurto gashay inaanu si fiican isula fahamno mustaqbalka iyo sida loo wada shaqayn lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa boqoshada Yusuf waxaan rajaynayaa in kulanka uu ka dhasho iskaashi ballaaran oo kor u qaadi kara dhaqaalaha iyo maxaan ku raadin wax wada qabsiga labada shacab gaar ahaan ay siinayso muasasada Boqor Salmaan ay u fidinayso shacbiga reer Soomaaliland oo aanu aad uga wada hadalnay sidii loo dhiirigelin lahaa in mashaariic dhaqaalaha kobciya in awoodda la saaro aad baanu isla fahamnay aad baan ugu hambaliyeynayaa isfahamkaana waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in mashaariic la taaban karo oo ay muasasadu ka fuliso jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa waana salaamaya assalaamu calaykum نقوم في هذه الزيارة يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية بالتشرف اللقاء مع معالي وزير التخطيط في حكومة سوماليلاند. intaasi kadib ku-xigeenka madaxa mashaariicda Afrika u qaabilsan markaska Boqor bin Salmaan mudane Yusuf Bulushi oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyn u mahadceliyay wasiirka iyo xukuumadda Soomaaliland sida ay u soo dhaweeyeen iyo sidoo kale sida fiican ay u fulinayaan mashaariicda ay waddanka ka maalgelinayaan. يأتي هذا اللقاء في التعاون والتنسيق. intii kulanka socday waxa uu mas'uulka wasiirka u soo bandhigay mashaariicda hadda socday iyo kuwa dhamaaday ay fulinayaan markaska Boqor bin Salmaan gabadhii kulankanina waxay labada dhinac isla qaateen in la sii xoojiyo xiriirka labada dhinac waxaana uu mas'uulku ballan qaaday inay sanadkan mashaariic badan ka fulin doonaan gudaha Soomaaliland.